halkani waa BBC oo aad ka dhagaysataan muujadaha gaagaaban efemiyada magaalooyinka qaar iyo barta internetka ee bbcsomali.com. subax wanaagsan dhagaystayaal, waa 28 bisha Agoosto, saacadda Afrikada Barina waa 7 subaxnimo oo gow ah. qodobada idaacadda aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah madaxweyne Donald Trump oo aqbalay in xisbiga Jamhuuriga uga qayb galo doorashada madaxtinimada ee dhawaan ka dhacaysa dalka Mareykanka. maxkamadda sare ee Somaliland oo go'aan ka gaartay arrinta saami qaybsiga sheegtay inaanay shardi ahayn in tirakoob lagu galo doorashada, balse in tirakoob la'aan doorasho la qabto waxaa ka soo horjeeda xildhibaankan oo ka tirsan baarlamaanka Somaliland kana soo jeeda gobolka Awdal. go'aankan waxaan u arkaa in wixii ay doonayeen ay ka qeybinayaan beeraha daafurta uu ka soo horjeedo baan aaminsanahay. saami qaybsi rasmi ah ama awood qaybsi rasmi ah oo dowladnimada Somaliland beeraha daafurta ay sheerkoodii ka helaan ayay doonayeen. BBC-da oo baaritaan ay samaysay ku ogaatay in gantaal laga tuuray diyaarad bilaa duuliya oo Imaaraadku leeyahay lagu laayay askar Liibiyaan ah. waxaa kale oo aad maqli doontaan يلا اللي سعلي وصغال ناس كل نكية مسلمين والناس فهمية كل سعلي صوبت أكيد يلا وقت هو متدير ومارسة لحسن سنة ومال عند الجوه ومكة السوق هذا يلا نكية السوق هذا واحد نكية. haddii aad dhagaysto marar badan maqashay reero geel kala dhacay, hadda arrintu sidaa ma ahan oo waxaa soo badanaya geelii la kala qaaday oo la isku celinayo. qodobadaas iyo kuwo kale oo caalamka iyo Soomaalidaba ku saabsan ayaad ku maqli doontaan barnaamijkan uu soo saaray Axmed Badar, anigoo Xasan Sheekh Cumar ah ayaan idinla socodsiin doona haddii Allah wada la yiraahdo. waxaan dhagaystayaal ku bilaabaynaa wararka caalamka ee BBC-da iyo Cabdulqaadir Yuusuf Cali. mahadsanid Xasan. daqiiqadihii la soo dhaafay madaxweyne Donald Trump ayaa khudbadiisa ka bilaabay shirweynaha xisbiga Republicanka. waxa uu kumanaanka kuna taageerayaashiisa u sheegay inuu haysto kalsoonida ah in 4 sano oo kale uu xafiiska sii joogi doono. waxa uu aqbalay inuu xisbiga ku matalo doorashada lagu wado in dalkaasi ay ka dhacdo bisha November. ugu yaraan 6 qof ayaa ku dhimatay gobolka Louisiana ee dalkaasi Mareykanka kadib markii ay ku dhufatay mid ka mid ah duufaantii ugu xooganayd ee dalkaasi Mareykanka. barasaabka gobolka Louisiana ayaa sheegay in dabaylahaasi xooga badan ay horseedeen duufaanta Laura ay sababeen khasaaro badan. maamulada dalkaasi Niger ayaa sheegay in daadadkii ka dhacay magaalo madaxda Niamey ay sababeen in nus milyuun qof ay guryahooda ka barakacaan. qaybo ka mid ah ayaa waxaa talaadadii hareeyay daadad xoog badan. hay-adda xuquuqul insaanka ee Amnesty International ayaa booliska ku eedeysay in ay magaalada Delhi ka geysteen xadgudubyo ka dhan ah xuquuqda aadanaha intii ay socdeen rabshadihii qowmiyadaha ee bilowgii sanadkan. hay-addu waxay sheegtay in booliska ay dhinac garab siinayeen intii ay dibadbaxyada socdeen. ilaa 50 qof oo intooda badan muslimiin ah ayaana lagu dilay rabshadahaasi. ugu dambeyntiina booliska Belarus ayaa xiray 10 dibadbaxayaal ah oo ka soo horjeeda dowladda, waxaana ka mid ah tiro wariyaal ah oo isugu jira kuwa dalka u dhashay iyo ajaanibba. hase yeeshee booliska ayaa eedeyntaasi gaashaanka u daruuray oo waxay sheegeen in wariyaashaasi aanan la xirin oo ay baarayaan aqoonsigooda saxaafadda oo kaliya. warkiisa waxnimana wanaagta Xasan Sheekh. aad buu mahadsan yahay Cabdulqaadir Yuusuf Cali oo nala socodsiinaya wararka caalamka ee BBC-da. dhagaystayaal u diyaar garooba qaybaha kale ee barnaamijka. aynu ku bilownaa sidaad warkaba ku maqlayseen, madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump ayaa waxa uu aqbalay in markaasi uu xisbiga Jamhuuriga uga qayb galo doorashada soo aadan ee lagu wado in dalka Mareykanka ay ka dhacdo, waxaana uu la loolami doonaa ama la tartami doonaa dhinaca kale xisbiga dimuqraadiga musharaxa u tartamaya ee Joe Biden. madaxweynuhu khudbada u jeediyay waxa uu ku sheegay inuu ku kalsoon yahay in uu markaasi sii joogi doono xafiiska. warkaasi waxaa soo akhriyay Axmed Badar oo haatan stuudiyaha ila jooga. Axmed.
xasanow madaxweynaha Mareykanka Donald Trump oo markaasi aqbalaya khudbadiisa uu ka jeediyay halkaasi waxa uu hadlay arrimo badan waxa uu sida caadada ahayd si weyn u cambaareeyay musharax xisbiga dimuqraadiga Joe Biden oo isagu markaasi ka socda xisbiga dimuqraadiga. Trump ayaa waxa uu sheegay in xisbiga dimuqraadiga ay burburinayaan riyada dadka Mareykanka waxa uu ballan qaaday in uu dib u dhisi doono dhaqaalaha dalkaasi Mareykanka. Madaxweyne Donald Trump waxa uu ka hadlay xasan sidoo kale dhibaatada fayraska corona waxa uu sheegay in inta uu sanadkan dhammaan la soo saari doono talaalka fayraska corona. Waxa uu sidoo kale si weyn u weeraray dowladda Shiinaha oo ku eedeeyay in ay ka dambeeyaan faafidda markaasi fayraska corona. Afarta maalmood ee uu socday shir weynaha xisbiga jamhuuriga ayaa waxa uu xasan ka duwanaa sidii caadiga ahayd ama la arki jiray siyaasadda dalkaasi Mareykanka. Waxa shirka afarta maalmood harayay khudbado taageero ah oo ay jeediyeen qaar ka mid ah qoyska madaxweyne Trump. واتهاي بدر وادما سنتهاي مركا دورشada dalka Mareykanka dabcan sanadkan ayaa lagu wadaa inay dhacdo marka sanadkan markaynu ka soo tagno goorma lagu wadaa inay dhacdo ama bisha lagu wado inay dhacdo bisha November ayaa lagu wadaa doorashada inay dhacdo. Sidoo kale madaxweyne Trump xasan uu ka hadlay arrimaha ku saabsan dibadbaxyada midabka ku salaysan iyo ficiladii ay booliska kula kaceen dadka madowga ah ama qaar ka mid dadka madowga ah tan iyo wixii ka dambeeyay dilkii George Floyd oo isagu bishii May ay booliska ay ku jileen magaalada Minneapolis ee dalkaasi Mareykanka. Waxa uu sheegay in aan markaasi aqlabiyada booliska ay yihiin dad wanaagsan waxaana inta ku daray marka ay booliska si xun u dhaqmaan waa in nidaamka cadaaladda ay markaasi la mariyaa oo qofka khaladka gala si buuxda loola xisaabtama. Waxa uu sidoo kale sheegay in la aqbali karin gudaha Mareykanka ay dadka sharciga gacantooda ku qaataan isagoo oo sheegay in qaar ka mid ah dibadbaxayaasha ay ku kaceen sida dhac iyo boob oo kale taasi uu sheegay inay tahay waxa la aqbali karin. waa tahay aad u mahadsan yahay Axmed Badar oo la socodsiinaya wararkii ugu dambeeyay ee doorashada Mareykanka iyo aqbalitaankaas madaxweynaha dalkaasi Mareykanka oo aqbalay in xisbiga jamhuuriga oo markaas u tartamo doorashada soo aadan. maxkamadda sare ee jamhuuriyadda iskeed madax banaanida ugu dhawaaqday ee Somaliland ayaa go'aan ka gaartay arinta saami qaybsiga iyadoo go'aamisay in aanay shardi ahayn in tirakoob lagu galo doorashada. arinta ayaa ka dambeysay codsi dhawaan madaxweynaha Somaliland Muuse Biixi Cabdi oo maxkamadda u gudbiyay oo arinka kaga dalbanayay. haddaba go'aankaasi iyo wararka ku gadaaman waxa iga warramay wariyaha BBC-da uga soo warrama magaalada Hargeysa Sidiiq Maxamed Burmad. xasan horta ugu horeyn waxa weeyaan qaraarkani waa mid codsigiisu dhinaca madaxweynaha ka yimi madaxweynaha ayaa u gudbiyay maxkamadda sare qoraal uu kaga dalbanayo qodob ku jira xeerka doorashooyinka oo u baahday in maaragtay tafsiir ay ka bixiyaan wax ka bedel lagu sameeyo. nuxurku waxa weeyaan ujeedada uu ka lahaana sidii doorashadu ay waqtigeeda ugu qabsoomi lahayd iyadoo qodobkaasi oo madaxweynuhu uu arkayay inuu caqabad ku yahay in doorashadu ay xilligeedii ku qabsanto. qodobkan waxa uu xeerka doorashooyinka uu ku biray sanadii 2005 mar sidan oo kale ay doorashadiina kaabiga ku soo haysay qabashadeedii madaxweynaha Daahir Yaalo xilliga xilka hayay isla mar ahaantaasina ay jireen cabashooyin taagna oo ahaa saami qaybsiga inaan lagu wada qanacsanayn oo loo baahan yahay doorashada inta kor la sameeyo. marka arintaas halkeediiba waxa uu ka dhigayeen madaxweyne Daahir Yaalo waqtigaasi in uu maxkamadda u gudbiyo oo ka codsado in waqtigan oo kaliya ta waa doorashadii 2005 ay maxkamaddu go'aan ka gaadho inay u fasaxdo in doorashadaasi lagu galo diiwaan tirakoob la'aan. marka maxkamaddu qaraarkii ay soo saartay baa ahaa in doorashadaas oo kaliya lagu galayo tirakoob la'aan. marka taas macnaheedu waxa weeyaan maadaama qodobka maxkamaddu uu xeerkii ku biiray in doorasho dambe aan la qaban karin maadaama amar maxkamadeed ay tahay ilaa tirakoob la sameeyo. haatanna xaaladeedii baa xasan uu taagan oo gobolladii qaarkood baa doonaya inaan doorasho la qabanin ilaa tirakoob la sameeyo maadaama ay leeyihiin saamiga aan ku leenahay kuraasta golaha wakiilada ayaan ku qanacsanay inay hal istiriyo. madaxweynuhu wuxuu u arkaa iyo xukuumaduna inay doorashadii kaabiga ku soo hayso sidii waqtigii Daahir Yaalo oo kale inaanay suuragal ahayn in laga gaarsiinayo. marka waxa uu ka codsaday inay qodobkaas ay wax ka bedel ka sameeyaan. marka qodobka wax ka bedelka ku sameeyeen xeerka doorashada wax kale ma taataabana waxay sheegeen doorashadan oo kaliya halkii ay kaga jirtay ayuun baa laga saaray qodobka la laalay. horta waa ka sidiiqo marka maxay tahay ujeedada iyo baahida keentay in madaxweynuhu xilligan doorashadii jadwalkeediiba la shaaciyay
oo maxkamadda u gudbiyo codsiga qodobka xeerka doorashada ku jira ee wax laga bedelayo waxa weeyaan xasanow dee doorashadiina haatan waa kuwii dhowaan xisbiyadu ku heshiiyey muddo dheer khilaaf ay ku soo jireen komishankiina haatan jadwalkii waa shaaciyey doorashadii in la galo waxay leeyihiin in tirakoob la sameeya iyadana waqti kale bay qaadanaysaa ayaa ay leeyihiin oo dib bay usii dhigaysaa marka waa in doorashada sidii lagu geli jiray lagu galo ayaa qorshahoodu yahay haatanna caqabadii hortaagneed waxay ahayd markaa qodobkaas xeerka ku jiray ee maxkamaddu ay hore u soo saartay marka caqabadaasay ka hor qaadaysay saasay u dalbanayeen si ay doorashada hore uga galaan ugu dambayntii Sidiiqow maxay tahay sababta ay u danaynayaan bulshada ku dhaqan gobolka Awdal in la sameeyo saami qaybsi tirakoob ku salaysan horta reer Awdal dalabkoodu waa ka ugu weyn waa xaweeyo gobolka arrinka aad u wada laakiin kuma koobna beelo badan way jiraan oo laftigoogu meel waliba gaarkeeda ay u arkayso inaanay saamigii kuraasta xaq u lahaayeen aanay golaha wakiilada aanay ku dhex lahayn laakiin way ugu weyihiin waxaa tusaale ahaan iyaguna kusoo dhadhowo ee gobolada bariga iyagoo laftigoogu way ka hadlaan kuwa dhexa laftigoogu way ka hadlaan laakiin ishiyuga ugu weyn ilaa waqtigaa hore ee 2005 ilaa maanta cidda ugu weyn ee ka hadlaysa ee dhinaca saamiga waa iyaga waxa weeyaan sababtuna waxa weeyaan kuraasta oo ay ku leeyihiin 13 kursi golaha wakiilada ee guud ahaan tiradiisuna ay tahay 280 ayaa waxa ay doodoodu tahay inaanay ahayn number ama tiradii xaqa u lahaayeen marka waxay doodoodu taagan tahay tirakoob guud hal la sameeyo tirakoobka guud ee la sameeyo percentage-ka goboladu ay kala helayaan kuraasta lagu yeelanayo ha lagu kala calaf qaado uu mahadsan yahay wariyaha BBC-da Sidiiq Maxamed Burmad oo qadka telefoonka ee magaalada Hargeysa igu waramayay haddaba inkastoo go'aankaasi ay maxkamadda Somaliland soo saartay haddana waxaa jira qaar ka mid ah bulshada degta deegaanada Somaliland oo iyagu ka soo horjeeda in tirakoob la'aan doorasho la qabto dadkaasi waxaa ka mid ah xildhibaan Cabdulqaadir Jibriil Dukaali oo ka soo jeeda gobolka Awdal kana mid ah baarlamaanka Somaliland qadka telefoonka ayuu igu waramay waxaana ugu horreyn weydiiyay bal waxa go'aankan lagu diidan yahay go'aankan waxaan u arkaa in wixii ay doonayeen ay ka qaylinayaan beelaha daafooda uu ka soo horjeedo baan aaminsanahay waxa aad ka qaylinayseen ee uu ka soo horjeedo maxay yihiin waxa weeyaan saami qaybsi rasmi ah ama awood qaybsi rasmi ah oo dowladnimada Somaliland beelaha daafooda ay sheerkoodii ka helaan ayay doonayeen si marka waxayna ka bilaabanaysaa golaha wakiilada iyo golayaasha oo ugu horeeyo taa golaha wakiilada hadda waxa lagu fadhiyaa 23 beelaha daafahoo dhan leeyihiin iyo inta kale oo dhan oo beesha dhaxlaan sheerkoodii bay doonayaan markaa oo taa golaha wakiilada iminka doorashada golaha wakiilada beelaha daafuhu way ka soo horjeedaan waxayna uga soo horjeedaan ilaa saami qaybsi rasmi ah oo kuraasta shirkay ku leeyihiin ay helaan inaanay doorashada ka qayb galeen sidee marka lagu heli karaa saami qaybsiga rasmiga sidee lagu heli karaa waxa lagu heli karaa tirakoob rasmi ah haddii la sameeyo oo dadka si rasmi ah loo diiwaangelin rasmi ah la sameeyo ama in beelaba wax lagu qaybsado labada hadba waa compromise beeleed waa lagu heshin karaa tan kalena waa lagu qanci karaa labada qodob bay ku xanta laakiin adigu waxaad xildhibaan ku tahay waa sharciga marka haddii aad sharciga diidan tahay oo go'aankii maxkamadda aad ka soo horjeedo soo taa uma muuqato in sharciga aad baal marayso maya sharciga ma diidani laakiin haddii go'aanka maxkamaddu ay soo saartay ay sidii hore lagu galo haddana ay soo saarto beelihii daafaha xuquuqdoodii bay dutiyaysaa baan aaminsanahay maxkamaddu waxay go'aamisay inaanay shardi ahayn in doorashada tirakoob lagu galo marka maxay tahay adinku sababtaad ugu dheggan tihiin wax weeyaan Somaliland beeshii dhexe oo ay kulaasteedu intaa tahay beelihii kalena ay intaa tahay ma taasay markaa waxa sharci noqonaysa beelaha kale intaa xuquuqda ma yeelanayaan baa sharci noqonaysa marka xukuumaddu waxay leedahay doorashada waqti kooban ayaa ka harsan xilligan suurtagal ma ahan in tirakoob la qabto soo taa idima muuqato way noo muuqataa laakiin barnaamijkani muddo intee leed buu soo socday tan iyo 2000kii tan iyo 2005kii go'aanka ay maxkamadda dastuuriga 2005 soo saartay weli wuu taagnaa si dowladnimadu inay xal u hesho waxaan ahayn mar horeba ma maanta biliga laba ka hadlayba waqtigiina nagu kooban haddana la odhanaya way wax adag weyn intaas haddii hadda tirakoob la qabto maxaa u soo kordhaya ayay kula tahay dadka gobolka Awdal ee aad xildhibaanka u tahay in alle inta wax tabanaysaba wax kasta u soo kordhay wax lagu kala qancay imanay wax lagu kala qanco ayaa noqon karaysa in doorashada kadib tirakoob la sameeyo maxaad ku diidan tihiin waxaweyaan markii hore la yidhi waxaweyaan markan unba saa lagu gelaya
baa berigii hore lagu soo dhaafay waxa weeyaan 15 sannadood ee 2015 ka dambeysay maanta baytaas u tahay maanta haddii si lagu leeyahay ilaahay damaad qaadaya in barnaamijka saxliismiyo waxay ka dambeeyay markaa xildhibaan Dukaale waxaad ka mid tahay golaha wakiilada Soomaaliland xaaladana si wanaagsan ayaad ula socotaa dawladdiina waxa ay leedahay doorashada ka hor lama geli karo tirakoob oo xitaa mararka qaar waxa la leeyahay waxa laga cabsi qabaa in doorashada ay dib u dhacdo oo arrintaasi ay keento dib u dhac doorasho marka waxyaabahaas oo dhan markaad eegto soo ma habboona in xaaladda aad dejisaan oo aad u aragtaan in doorashada la galo kadibna la isugu yimaado wixii tirakoob ah iyo wixii saami qaybsi ah qaabka looga heshii karo waxa weeyaan waxaaba haddii daacad laga yahay 6 bilood bay tirakoob ku dhamaan karaya haddii rasmi loogu fadhiisto at same time barnaamij laga guurteeyo waqti kooban baa lagu dhammayn karaya waxaasoo dhan marka waxba la diidan yahay baad moodaa inaan waxba la isla ogolayn baad moodaa laakiin barnaamijku haddii xal ka gaala laisleeyahay haddii tirakoob la gelayo iyo haddii xal kale ka gaala laisleeyahayba waqti waa loo haystaa waana la dhammayn karaya kaasi wuxuu ahaa xildhibaan Cabdulqaadir Jibriil Dukaale oo ka tirsan baarlamaanka Soomaaliland qadka telefoonka ayuu ugu waramayay qadka qodobkaasi qaar ka mid ah dhageystayaasha BBC-da ayaa dhinaca Facebook aragtidooda kaga soo dhiibtay dhageystaan oo lagu magacaabo Xamdan Muuse Saalax oo joogta baran waxay leedahay go'aankaasi ay gaadhay maxkamadda sare ee Soomaaliland waa mid ay ku degdegtay waayo bulshada ku nool Soomaaliland waxay xaq u leeyihiin si siman in ay wax u qaybsadaan dhageysta kale oo lagu magacaabo Maxamed Muuse Cabdulaahi oo ka soo qoray Caabudwaq waxa uu leeyahay maxkamadda sare ee Soomaaliland go'aanka ay gaartay arrinta saami qaybsigana ka gaartay sheegtana in aanay shardi ahayn tirakoob lagu galo doorashada runtii aad baan u soo dhaweynayaa go'aankaasi waayo maalmahan dambe waxa aad u badnaa uu leeyahay muranka arrinta ka taagan way mahadsan yihiin waa aragtida qaar ka mid ah dhageystayaasha BBC-da ee dhinaca Facebook ay noogu soo direen welina halka aad naga dhageysanaysaan waa BBC waxaad ka heli kartaa wararkii ugu dambeeyay ee Soomaaliya iyo caalamka oo dhan maalin walba BBC-da ayaa soo bandhigtay caddayn cusub oo muujinaysa in duqayn ay geysatay diyaarad bilaaduulye ah oo uu leeyahay dalka Imaaraadka waa dalka isu taga Imaaraadka Carabta ay bishii January sanadkan caasimadda Liibiya ee Tripoli ku dishay 26 askari oo tababar ku jiray ciidamada uu hogaamiyo General Khalifa Haftar ayaa beeniyay in ay mas'uul ka ahaayeen duqayntaasi loo geystay askarta loo tababarayay dowladda ay qaramada midoobay taageerto ee Liibiya balse baaritaanka ay si wada jira waa baaritaanka oo ay si wada jira u sameeyeen BBC Africa iyo BBC Arabi ayaa lagu ogaaday caddayntaasi muujinaysa in askarta uu haleelay gantaal laga soo riday drone uu leeyahay Imaaraadku xukuumadda Abu Dhabi ayaa horey u beenisay inay ku lug leedahay colaadda dalka Liibiya Benjamin Strake ayaa faahfaahinta noo diyaariyay waa kan Maxamed Cabdiraxmaan Sheekh oo soo jeedinaya baaritaanka ay BBC-da samaysay ayaa loo adeegsaday muuqaal caddayn ah oo laga soo duubay goobta uu weerarka ka dhacay si loo xaqiijiyo nooca gantaalka laayay askarta tababarka ku jirtay qiimaynta ay BBC-da samaysay ayaa lagu ogaaday in gantaalka uu ahaa nooc uu sameeyey Shiinaha islamarkaana laga soo ganay diyaarad drone ah oo lagu magacaabo The Wing Long 2 BBC-da ayaa sidoo kale ogaatay in xilliga uu weerarkaasi dhacayay diyaaradaha noocaasi ah laga hagi jiray oo keliya saldhigga ciidamada cirka Liibiya ee Al-Khadim dalka Imaaraadka Carabtana uu yahay kan geeyey islamarkaana gacanta ku hayay droneskaasi in qalabkaasi military dalka Liibiya la geeyo ayaa meel ka dhac ku ah cunaqabateynta hubka ee qaramada midoobay ay waddankaasi saartay sanadkii 2011 bishii January ee sanadkan shir looga arinsanayo colaadda Liibiya oo ay magaalada Berlin ku qabatay hogaamiyaha Jarmalka Angela Merkel ayaa dalka Imaaraadka Carabta waxa uu ogolaaday inuu ka baaqsado faragelin kasta oo uu ku sameeyo dagaalka Liibiya dowladda isu taga Imaaraadka Carabta ayaan ka jawaabin codsi ay BBC-da u dirtay oo ku aadan arrinkan aad buu mahadsan yahay Maxamed Cabdiraxmaan Sheekh oo warbixintaasi soo jeedinayay markana haddii aynu dib ugu laabanno Soomaaliland xeerka kufsiga ee uu maalin ka hor ansixiyo golaha wakiilada ee jamhuuriyadda iskeed ugu dhawaaqday madax bannaanida ee Soomaaliland ayaa marka uu dhaqan galo la filayaa in uu wax ka tari doono la tacaalidda xadgudubyada jinsiga ku salaysan xeerkan oo wax ka bedel lagu sameeyay dhawaana lagu wado inuu maro golaha guurtida ee Soomaaliland ayaa ciqaab kala duwan u jaangooyay dambiyada ay ka midka yihiin kufsiga
haddaba intee ayuu gaarsiisan yahay heerka kufsiga ee Somaliland su'aashaasi iyo kuwa kale ayaan weydiinay Caashe Cabdi Rooble isuduwaha xarunta Baahikoob oo ah mid hoos tagta wasaaradda caafimaadka kana shaqeysa arrimaha ku aadan tacadiyada jinsiga ee uu kufsigu ka mid ka yahay qadka telefoonka ee Hargeysa ay ugu warantay wariyaha BBC-da Kawsar Maxamed Cabdullaahi. kufsigu waxa u badan yahay gabdhaha oo waliba caruur ah يعني عروسة ما كان لنا شيء يتذكر وشيء كير قبلها ينو بديهن إنما باللفتر كودنا إنما هذا يرير كعاد ويريرنا يتشره gabdhaha ayaad sheegtay siiba caruurta yar yar marka yaa geysta kufsigaasi lagula kaco cid kasta geysataba ila tahay caruurta yar yarka ah waxay u badan tahay dadka ama ehelka ama deriska ah ayaa u badan waxa geysta deynta weynaha saawaysa nin ay dabadahaas ama keelaya ama habooba ama iska daayo waa gaar laakiin caruurta yar yarka ah 14 iyo wixii ka yar waxay ugu badan yihiin dadka deriska way iska dhici kartaa inay ama roodi dukaanka looga dirsaday ama wuxuun ilmo yar kureeyay ay dhaxda ka qabsadaan laakiin waxa ugu badan waa deriska iyo ehelka marka bal sharaxaad kooban naga sii qaabka aad ula tacaashaan marka la idin keeno qof kufsi loo geystay horta anagu institution dawladeed baanu nahay oo dhakhtarada Hargeysa iyo Burco iyo Boorama ku dhex yaala marka qofka marka la keeno talaabada ugu horeysa la qaadaa waxa weeyaan xagga caafimaadkiisa qofkii haday nabarro waaweyn jiraan oo korka oo physical oo la arkayo waa la daweynayaa xagga kale waa la baadhaya in qofkii kufsiga igu dhacay buu kugu yiri dabadeetana ma iska oran kartid kufsiga ku dhacay waa in la baadho dhakhtar baadhaan gynecologist hablaha nurseska cidii markaas joogta qofka la keenay ay baadho dabadeetana foomka caafimaadka bay buuxiyaan marka la buuxiyo ayaa annaga naloo keenay Baahikoob ahaan annaguna markaasaanu haddana wareysi kale iyo sii gala inaanu wixii aanu u qabanayno ee kale u qabano ay ka mid tahay xagga cilmi nafsiga oo ay ka mid tahay CID baa nala shaqaysa dabadeetana kayska markaanu annagu wixii aanu ka dhamaysano diiwaangelina CID da halka ka gashay CID da ayaa kayskii markaa baaritaanka ku samaysa meeshii wax ka dhaceen tagta haddii qofkii qof la garanayo tahay soo qabata soo xigda iyagu markay baaritaankoodii soo dhameystaan xeer ilaalinta u gudbiyaan xeer ilaalintuna maxkamadaha ay u sii qaybiyaan kayska sidaas oo markaa qofkii cadaaladii loogu raadiyaa mararka qaar soo ma dhacdo in kiisaska kufsiga lagu xaliyo qaab xeer jajab ah oo aan maxkamadaha loo gudbin waa dhici kartaa laakiin waqtigan xaadirka ah ma badna 5 sano 6 sano ka hor 4 sano ka hor way jirtay dadku kulli society aad u yar baynu nahay oo dadka badidiisu is wada yaqaanaan dad baa markaas iska doorta inay maxkamadda tagaan oo lagu arko oo haday khaasatan gabadhu gabarshoon ay tahay taasi waxay ahayd Caashe Cabdi Rooble oo u waramaysay wariyaha BBC-da Kawsar Maxamed Cabdullaahi markaana muddooyinkii dambe waxaa deegaanka Mandheera waqooyi Barakiya ku soo batay shakhsiyaadka soo celiyay ama soo celinaya geel ay qoysaskoodu dhaceen sanado badan ka hor arinta ayaana loo aanayay wacyigelin badan oo ay sameeyeen culimada deegaankaasi waxa uu dambeeyay nin toddobaadkan soo celiyay 9 neef oo geel ah oo uu sheegay in qoyskiisu ay dhaceen 60 sano ka hor Cabbaas Cilmi Maxamed oo ah ninka geelaasi loo celiyay ayaa iiga waramay sida ay wax u dhaceen geela li soo celiyay waa 9 neef kulli ninkii muslimnimada oo naasuun fahmay oo kulli soo celiyay sababtaas akeed qolada geela ku soo celisay marka ma ku sheegeen waxa ku dhaliyay go'aankaas inay qaataan geela horta waa muddo dheer oo maarta 60 sano iyo meel aan laga joogo waa marka la soo qaaday geela ninkii soo qaaday waa dhintay waxaan ugu soo dhalisay yareen markaan si fiican arrimaha u fahnay dib inaas galan dhinaca muslimnimada iyo aan wax walba geysanaya aan maarta fahmay marka sababtaas aan u celiyay sirgeel maarta way culum way waayahay Cabbaas marka ma ka warqabteen in geelaasi uu jiray oo mar hore laga dhacay qoyskiina waa weynay geel farbadan laga dhacay waana waqti dheer ay ahayd ila awowyaalka ayna geelaas laba dhinac waa la iska dhacay waana dhaca farbadan ay geel maarta oo ninkoo laba ma ahayn hadiiba aad la socoteen geel inuu idinka maqnaa oo aad garanayseen cidda geelina haysata ma isku daydeen adinku qaab nabad ah inaad ku raadsataan geelini si la idinkugu soo celiyo waqtiga geela la dhacay waqti hore oo dadkana magaalada sidaan u soo galin oo dadka baadiye as wala duwayaheed waa isku soo noqdeen ma jirin
nabadana kuma jirin inayba geela hadaad aragtidnaad kaadanaad ma wareysan karin ila nabaddaa ku jirtay inaan geela laba dhinacba waa jiri cidna ay maaragtaa isku soo noqonay isweydiinin ninkii muslimiin u bixi mooye nin kalena waxba kama jirinayn dhacdooyinka noocan ah bilihii dambe way ku soo badanayeen Mandheera oo dadka qaar waxay soo celinayeen geel sanado badan ka hor ay dhaceen marka maxaad is leedahay waa ay sababeen in go'aanadaasi ay qaataan dadkii waxyaalo badan oo ka maqnaay oo dhinaca diinta ee maaragtaa zaad uu soo kordhamay culumadana waa cajin fara badan ay samaysay bulshadana isdhexgal fara badan ka dhacday hay'adahana maaragtaa isdhexgal fara badan ay sameeyeen marka haddii dadkii marka isku soo dhawaaday waxyaalo badan lilaa go'aansaday ama yacni dadkii isdhexgalkiisa zaad u sii batay amriyaan hadda u sii joogtana waa sii wanaagsantay aniga hadda naftayda kula hadlaya taariikh 21 geel kale oo iskii imaano ninkiisa la aqaanay yaa sidaas ku u celinay meel yiraahdo Mirley baanisa isirge ko hore sidaas ku geel kale fara badan baanis la keenay oo cid aan dul soo celiyay adiga hadda waa ay gelintii culimada wada waxaan leeyahay in yacni diinta oo zaid ay fahamkeeda iyo dadkii maarta xaaraantii laga dhaqaaqay geelaas aad celiseen marka adinka miyaa hore u dhacay meeqa sanad ka haysateen marka ina 50 sano iyo wax la jiraan waayahay adinkuna qaab sidee ah ayaad u celiseen ninkii lahay una subax yani maarta odayaashii oo qabaylku u maaday waxa aniga waa hadda ko hal baan soo qaaday ashi waa cunay wax badan aan cunay hal baa ka dambaysa hadda inay dalahaysa waxaan jeclaysaa hashi markaan inay gubaysan xaaraan tahay inay hashi liga celiyaan rabaa ilaa dadkana dad la dhashay dad oo kala fogmaan waa dad jiiraan waa dad oo yacni maarta kala guursaday waa dad la jira ninka ina hebel yiraahna hash ka soo qaada qarnigaasaan ogahay dadkaas ka soo qaadan waa dhamaaday ilaa wiilishiisa si joog Abaas waxaan rabaa inaan ku weydiiyo su'aal dad badan laga yaabo inay is weydiinayaan oo ah qofkii dhacay 2 neef oo geela 50 sano ka hor ee hadda soo celinaya ma waxa uu soo celinayaa labadii halaad oo kaliya mise waxa uu la soo celinayaa wixii muddadaas oo haystay ka farcamay labadaasi halaad dadka horta markaas hawlahan bixinaya waxa shaadina cafis inaas ka helaa ninkii walaalka ahaa ama ilmihiisi wuxuu ka dhacay kulli culumadana maarta ku dhex jirta waxa geela loo celinayaa yani maarta wadniga labadan halaadan haya maalintii hasho aan ka qaaday ama balladaas ahay wixii kale iyo cafi intaana waa keenay cafis baa dalbanaya ninka tallaabooyinkan dadku ay ku garaawsadeen in xoolihii la kala haystay la isku celiyo maxaa ka dhalan kara wallahi wanaaga ka dhalanaya arrintaas yani maarta isjacayl baa ka dhalanaya geel fara badan inaan heli doono maarta la soo celin doono waa filaya markaas culimada markii masaajidada ka ilaaminaysa in yani xoolihii la kala dhacay la celiyo ninkii ku dambeeyaan dad baan oo yani maarta arrimahaas ku fikirsanaa zaid ka jira wanaag fara badan waa keenay وانا يعني مرتا إن يعني سي ونفسنا دونا هم أنا تضبط كان دم جيل ربنا العلم دون kaasi wuxuu ahaa Cabbaas Cilmi Maxamed oo ah markaas nin loo celiyay geel muddo dheer ka hor markaas laga dhacay oo gaaraya 9 neef qadka telefoonka ayuu ugu waramayay Mandheera markana haddii aynu eegno wararka ciyaaryahanka qadka dhexe uga ciyaara kooxda Man United iyo xulka qaranka Faransiiska Paul Pogba ayaa laga helay fayraska corona sida la xaqiijiyay 27 jirkan ayaana waxaa qasab ku ah in uu haatan galo karantiil 14 bari ah waxaana uu doona kulamada xulka Faransiiska ee qaybta ka ah koobka qaramada Yurub wararkii ciyaarana waa naga inta dhageystayaal guud ahaan idaacaddii subaxnimo soo saaray Axmed Badar anigoo Xasan Sheekh Umar ahna aan idin la socodsiinayay Cabdulqaadir oo warka noo aqrinayay Jum oo noo farsameynayay dhammaanteen oo isku duuban sida iyo nabadgelyo tan iyo 2 duhurnimo